السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلام منا ميرو الوجوكتان أنتي هبين يوتها هبين ونكسن أنتي معلم تهين معلم ونكسن إلهي سبحانه وتعالى معطي هنا بركايو إلهي أنا هم حريستو ما أنت توبيجنا أما موضوع أنا وحكو أدين هاي قبلي لجود لي جرملك الله حريسته ليلو الله حريسته أو دلي سيء جدا أو دلي أو قعن كحضر أي شيء ما ده كرنا قف مؤمن أو إسلام كمت المام كرنا وايو قف مؤمن أدلو أو سك ولا كع أدلو إلهي سبحانه وتعالى وحليه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدين فيها أبدا قف مؤمن سك لكع أدلو إلهي سبحانه وتعالى هو كعرضي إلهي سبحانه وتعالى أنا وحدياري جهنم وولجس أقواري ودياري مركا قبل مسكين تا سيجي أدلي اللهم حرست الليلو أهل كذا يا قرابة ذا وحن مدرنا تعسيو وحن لنا إلهي سبحانه وتعالى سبري إيمان الله يرسيو ويل كذا يرى أي شيء قال قالتنا إلهي سبحانه وتعالى قعنت الله كصافرته إلهي سبحانه وتعالى أنا مارتي أهل كذا قرابة ذا هكوري جيو أما نكذا هريا ولا شيء مارتي أما هيا أما فمل كذا هيا إلهي سبحانه وتعالى وحن برينا إن قال الله قالتي وإلهي سبحانه وتعالى قعنت هذا عقص بحيو وحن لنا ورد إسلام بات شيئا إسلام دلك النواد عادي ستين ودلك وحد كدقتين نفتي إلهي سبحانه وتعالى قال يا هيدا أومي أيا وحد كدقتين سي إيزي أبد ودقتين سي إيزي أبد تكد شيء يا لسود ليا مركا وحن ليا بناهي وأنا مسكح ذي سيوي مسكح ذي عن كقادم واي قف إسلام أيها وحود ليا إسكدا ولو كان أيها وحود ليا ناقتيسي لميت حاسكيسي أهي إلهي سبحانه وتعالى اسكو مارتي سو مرأس كذا سو هويي وجور حلال سو حمرين يا مارتي دليسا ورا قلبي هذا أتكا أو نفط هذا أتكا أو مارتي قلبي أتكدا وحال يري ليلى الله نحرسته نيك الدلي نيك هذا الدلي وحال يري واني سو عبي خمر وسو عبي باليري واني مارتي مندوري سو استعمالي وحان halkan مارتي kala hadlaya hooyooyinka مارتي Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliyeed war waxaad guursanaysaan iska ilaaliya war waxaad guursanaysaan iska fiiriya war waxaad guursanaysaan iska tijaabiya war waxaad guursanaysaan iska hubiya wax kasta waxa weeyo u fiiri awlaadaada dambe aayatiinkaada dambe iyo awlaadaada dambe u fiiri ninka markuu yahay nin maandooriye isticmaalo waxa weeyo wax kasta way ka suurtoobaan wax kastana waa laga filan karaa haddaad aragta nin naagtiisa gacan u qaadayo ama feerayo ama dhurbaaxayo ama waxaynayo marka ku dambaysa ku xogtana waxa imaan karto sida hadda ay dhacday baa imaan karto gacan qaadka la iska ilaaliyo oo fudaydka hal iska daayo oo maaragtay spiritigan iyo maskax adaygan iyo maaragtay spiritigan kugu jirto war hal iska daayo hal la ogaado inay shaydaan uu kugu xiriiro oo shaydaan uu maaragtay dhiigaada u dhaxmarayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay war shaydaan cadowgiina way iska ilaaliya shaydaan waa cadowgiina koobaad ilaahay baa dhowr mar noo sheegay inna shaydaana lakum caduwun fattakhiduhu caduwan badale والشيطان وعدوجين إلهي سبحانه وتعالى وحكلا دردارمي النبي جيس آدم أيه وحوليه الشيطان عدوجين ويان إسك إلى حواء آدم على يلا دردارمي حواء آدم أيه الشيطان كسو صاري جنادي أي كجرين مركا أديكو مارك أنا النبي هين أو إلهنا كدورانين أديكو النبي ياشي والشيطان النبي وساء وكل بي هذا حاجة جوكتاع مركا وحن كلها هاي دردارن كيجا وحوي هاي ولا الكيو madax adayga hal iska daayo isfiilitida ku jirto dadkan bini'aadamka Soomaalidan ah iska daayo wallahi easy bay ka dhigteen dilkii baa la fududeystay
aad baa loo fududaysta dilka war waxaan aad nafta aad dilayso aad goynayso ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iska leh xageed ka gelaysaa allihii subxaanahu wa tacaala nafta iska lahaa markaad disho adi xageed ka gelaysaa oo ilaahay waa kan hadda kuu sheegay aayadiisa qur-aanka wuxuu ku leeyahay waa kuu sheegay haddii qof mu'min ah oo si ula kaca aad u disho ilaahay subxaanahu wa tacaala adna wuxuu kuu diyaariyey jahannama ooda dhimanaynin ood ku waarayso kuu diyaariyey waryaa jahannama maxaad mooday jahannama wax yaryara maaha jahannama wax lagu kaftama ma ahan jahannama waxaa weeye waa naar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hagaajiyey ilaahay wuxuu hagaajiyena waad og tahay siday noqon karaan yaa suurayso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu hagaajiyey marka waxaan ina leeyahay dilkii baa batay mala yacniga la isu dilaayo ayaa batay war naftibaa maarata waxaa laga dhigayba wax maaragtay sahlan baa laga dhigay hadda waxaan arkayay maanta gabadha Leyla Allah u naxariistay waxaa iga sii daroon arkayay nin taariikhda 12 bishii saddexaad 2012kii taariikhda markay ahayd askari ku dilay Soomaaliya ku dilay hooyo rooti gadayso iyo hooyo ka gadanayso 1000 shilin buu dilay baa yiri maanta la soo dhigayay 8 sano ka hor baa cadaaladeeda maanta loo soo helay baa yiri askariga la soo qabtay bal ilaahay baan kugu dhaariyay 1000 shilin oo shilin Soomaaliya ninkii qof naftiisa dhan u dhaafiyay ka warrama maxay ina la tahay ka warran war naftii waxaan ka dhiganay wax sahlan man ka dhiganay laakiin ilaahay agtiisa hal qof oo mu'min ah oo la dilo kacbadaad aragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ka barakaysan oo zuusha ayaa dhaantay baa yiri baabado hal qof oo mu'min ah oo xaq darro lagu dilay kacbadoo baabada uga dhaantay baa yiri kacbadana meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka taagantay wad garanaysaan war mu'minka ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa aad oo la qiimo badan tahay annagana waa sahlanay waan fududaysanay war waxaan ina leeyahay war ilaahay subxaanahu wa tacaala oga baqa ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa dadka naftu u umahay sida xaq darro aad ku dilaysaan ka daaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa oo qof mu'min aad sheeganaysaa oo islaam ah dhiig baad gelaysaa oo qof mu'min oo islaam ah dilaysaa billaahi calaykum islaamnimada aad sheeganaysaa maxay tahay markaas iimaankaad aad sheeganaysaa maxay tahay markaas war ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oga cabsada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqiisa u uumay daaya oo sida xaq darro aad ku dilaysaan ka daaya waa dardaarankayga waa ina leeyahay halkan waxaan ka dardaarmayaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay war waxaad iska fiirisaan war waxa aad guurisanaysaan naftiina waa qiimo badan tahay wax aad guurisanaysaan iska ogaada oo iska tijaabiya bal hadda waxa lagu leeyahay Leylo Allah u naxariistay ninkii dilay Leylo sida la sheegay waxa ka dhooftay wadanka Masar bay ka dhooftay waxaana qaaday maartay ahayda inta qaaday Leylo waxa la geeyay baa leeyahay Jarmalka ninkan hadda dilayna meesha isu barteen si gabar kale ay sheegayso waxay tiri Leylo waa caawin jiray markii hore kadib haddana way isguursadeen bal ilaahay baan kugu dhaariyay waxa weeyo sida easy-ga ah qofka aad horta qofku inaad iska ogaato muxuu yahay muxuu gudi karaa muxuu qaban karaa muxuu sababi karaa waa inaad iska ogaato hadduu qofka maandooriye isticmaalaan hadda ku sheegaya wax kasta way ka suurtoobaan naftaada iska daaye naftiisa waxba laahin marka waxaan kanaga dardaarmayaa sideedaba aan nagala dardaarmayaa war qof maandooriye qabo ama maandooriye isticmaalo iska ilaaliya naftaadana ka taxadar naftaada qiimay leedahay marka hadda waxaan leenahay Allah u naxariisto Leylo sabri iimaan Allah ka siiyo ehelkeeda wiilkeeda yarka ah ee gaalada ka qaateena Allah u soo furdaamiyo waxaan leenahay Allah u soo furdaamiyo ducaan u direynaa biidnillaahi tacaala waxaan leenahay Allah u soo furdaamiyo ehelkeedana Allah u gaarsiiyo insha Allah tacaala oo walaalkii Shaakir oo ina leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh